dowladda hoose degmada Burco ayaa maanta waxay wada banaan ka fulisay xaafadda Caqiibo ee ka agdhow xirada ciidanka militariga ee gobolka Togdheer waxaana howlgalkan wada banaynta sirfayga horkacay maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad intii lagu guda jiray howlahan shaqo ee wada banaynta ayaa waxa halkaasi warfadiyeenada kula hadlay maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad waxaana uu sheegay maayirku in wada bixintani xaafadda Caqiibo ay ka mid tahay qorshayaasha horumarinta bilicda magaalada ay wada dowladda hoose bishii koobaad 2015 halkan waxa aanu maanta ka wadnaa howlgal wada banayna wadooyinkaas inta la garanayo 20 sano ugu dambeeyay waa xidhnaa waxa ku nool dad aad u danyara oo ku dhibaataysna meel xitaa biyo u soo maran xaafad ma lahayn xitaa meel meedka la maro ma lahayn cabatinka xaafadda aad buu noo damqay saaka ayay noqotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray inaanu wadooyinka banayno waa jecelahay in aanu wada aan ka xidhnaanin degmada Burco waxaan rajaynayaa inay noqoto wadada dadku inay aad maartay ugu reeyaan qasabad male meesha biyo ma soo gaaraan booyada biyaha ayaa u dhaamisa booyada biyaha meel allaale meel u soo marto way waayeen marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa maanta inay dadkaasi aasaaskii nolosha wax ka mid ah ay heleen taliyaha ciidanka militariga gobolka iyo banduulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wada bixinta xaafadani Caqiibo ee agagaarka xirada madaafeeda ciidanka militariga waxa weeye horta saaka waxaan aad ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka oo hormood yahay gudoomiyahooda Maxamed Muraad hawshan ay ka qabanayaan xaafadan militariga ee la jaarka xiriyaha militariga waana mid runtii baahi weyn loo qabay inkastoo aan ka sii jeclahay xiriyaha agagaarkooda in wadooyinka lagu horeysiiyo si ay u kala cadaato xirada ciidanka iyo maxaa dhacay deegaanka dadka maxaa dhacay degan meesha oo dee askartii ciidanka u badan waxa weeye markaa waa hawl na sugaysay runtii muddo dheer maanta haday suurto gashay waa alxamdulillah horta aad baan u soo dhaweynaynaa wada bixinta iyo sirfayga waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhulkan wuxuu ahaa soone military imika halka inaga dambaysa waa xiradii madaafiicda maadaama dhulkii uu deegaamoobay oo waxa weeyaan uu deegaan noqday in annaga iyo dadka wadooyin noo dhaxeeyaan dadkuna ay wadooyin helaan xaafadana ay dhibaato badan oo wada la'aan in badan ay ka jirtay codsiyada iyo in dhulkan wadooyin laga saaro oo soonana loo kala sameeyo dawladda hoose bariyaha anaga dacwadeedii iyo hawsheedii riboodkeeda wadnay hadaan nahay tariska militariga qaybta iyo aaga waxa weeyaan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladda hoose qaar ka mid ah dadweynaha xaafadani Caqiibo ayaa iyaguna ka dareen celiyay hawshan ay dawladda hoose ka wado xaafadda waxaana ay sheegeen inay si mug iyo miisaan leh u soo dhaweynayaan wada bixintani aniga oo kamid ah xaafadda Caqiibo la yiraahdo magaceygana la yiraahdo Shukri Maxamuud Caynab Barre oo ku naaray dheer inabigeeya Caynab waxaan u hambalyeynaa mahad u naqaynaa nimanka dawladda shacab iyo dawlad wax kasta nimanka ay soo gaashaan buursaday maxay tahay maanta sarfayga noo keenay waayo dad indhalaabaan hayno sida baarishoodka wax nagu soo daga mooyee waxna aan naga bixin waxna aan soo galin waxaan u mahadnaqaynaa nimanka madaxda ee noo yimid ee wadooyinka naga saaray sallallahu alayhi wasallam saaka aad iyo aad baanu hadaanu xaafadanahay u faraxsanahay aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa hawsha saaka xaafadana looga hayo ee gudoomiyihii dawladda hoose Maxamed Muraad iyo jolmitiradiisii iyo xildhibaanadiisii ay la socdaan aad iyo aad baan hadaanu xaafadda barwaaqanahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay dhulka kalena insha Allah waa la gaari doonaa dadkuna wax wada qabsi wax ku yahay anaguna inta aanu qabsan kareynay waa qabsanay iyana intii ay noogu dareen waa noogu dareen aad iyo aad baa xaaladda aanu saaka aad iyo aad baan u faraxsanahay wariye Xabiib Cige Somaliland Today